warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya xalay ku dhexmaray deegaano ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabduqaadir Jakarta ayaa warkan inoo faahfaahinaya. dagaalka aad cuslaa ayaa ciidamo ka tirsan kuwa militariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xubno kamid ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxa uu xalay ku dhexmaray degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalka ayaa sida la sheegay waxa uu yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen 3 barood oo ciidamada dowladda ku leeyihiin buundada weyn ee Afgooye wadada aada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kontaroolka Mukayga iyo halka loo yaqaan Haanta Dheer waxaana halkaas ka dhacay dagaalo muddo saacadaha socday. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen ilaa 3 jeer oo kala duwan ee dhaceen dagaalada isla markaana ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay soo adeegsanayeen labada dhinac sidoo kalena uu jiro qasaale kala duwan oo ka dhashay dagaalka. waxaana xusuus mudan baraha control ee weerarka lagu qaaday ay tahay wadada xiriiraysa inta u dhaxaysa degmada Afgooye iyo magaalada Baydhabo ee gobolkaasi Bay ina wadadaas ay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka. saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka degmada Afgooye wali kama hadlin dagaalka ka dhacay degmadaasi Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyada oo toddobaadka ay tahay markii labaad ee degmadaasi weerara al-shabaab. dadka ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen inay dareemaan cabsi ballaaran kadib markii haweenada qaar ah ay gudaha magaalada kusoo dhacaan hubka noocyadiisa kala duwan ay soo adeegsanayaan labada dhinac ee ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinaca iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab. waxaana la sheegay in markii labaad ay tahay toddobaadkan ee al-shabaab weerar kusoo qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. wararkii ugu dambeeyay in soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda degmada ay tahay saaka mid degan isu socodka iyo dadka iyo gaadiidkana ay si caadi ah u shaqeynayaan marka laga reebo ciidamada dowladda oo wada dhaqaaq ciidan oo ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee soo weerareen deegaano hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. ayaa sanad ka hor waxaa la wareegay ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoosa Soomaaliya ee Danab. deegaanadaasna waxaa kamid ah Sabiid iyo Caanole iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. inkastoo ay jiraan in mararka qaarkood ay weerar kala kulmaan xubno ka tirsan ururka al-shabaab. dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa toddobaad kadib ka hadashay weerar lagu burburiyay xarun mid kamid ah idaacadaha ku hadla afka al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose. weerarka oo ka dhacay deegaanka Kunya Barrow oo hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa toddobaadkii hore ay ahayd weerarkaasi duqeyn diyaaradeed oo loo geystay xarun idaacadda ku hadasha afka al-shabaab ee la yiraahdo Al-Furqaan. waxaana toddobaad kadib ka hadlay dowladda Soomaaliya. war ka soo baxay taliska ciidanka Danab ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyay xarunta idaacadda al-shabaab ee Al-Furqaan sidoo kalena lagu dilay saraakiil iyo wariyaal. saraakiisha ciidanka Danab waxa ay sheegeen in xilliga weerarka duqeynta idaacadda uu dhacayay ay socotay mid kamid ah ama idaacadda uu ka baxayay mid kamid ah barnaamijyada ay sheegeen in lagula hadlayay dadweynaha deegaankaasi. saraakiil ka tirsan commandoska Danab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka duqeynta lagu dilay wariyaal u shaqeynayay al-shabaab iyo saraakiil sare oo ka tirsan ururkaasi. saraakiisha Danab waxay tilmaameen duqeynta lagu dilay agaasimaha idaacadda oo ay magaciisa ku sheegeen Cabdiraxmaan Cali halka sidoo kale ay sheegeen inuu jiro saraakiil kale iyo wariyaal oo uu ka mid yahay sida ay sheegeen wariye kale oo lagu magacaabo Axmed Dalmar Abu Warsame iyo sidoo kale wariye kale oo lagu magacaabo Maxamed Cali Aadan. saraakiisha Danab waxay duqeynta sheegeen in lagu dilay sargaal lagu magacaabi jiray Ismaaciil Dubad Shigshigow oo xilligaasi lagu wareysanayay mid kamid ah barnaamijyada ka baxayay idaacadda. warbaahinta al-shabaab ayaa markii la duqeeyay waxa ay baahiyeen in qalabka idaacadda uu burbur soo gaaray hase yeeshee uusan jirin khasaare nafeed marka laga reebo 3 qof oo shacab ahaa oo duqeynta ku dhaawacantay. xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xalinayso tabashada laga qabo hogaaminteeda dhinaca doorashada iyada oo sheegtay in dalka ay ku qabanayso doorasho lagu qanacsan yahay. Aweys Bashiir ayaa faahfaahinaya. kulamo siyaasadeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxay xukuumaddu ku shaacisay inay ahaayeen kuwo intooda badan lagaga hadlayay sidii dowladdu ay u qaban lahayd doorasho loo wada sameyn yahay ayna mucaaradka ka qayb qaataan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa mar kale caddeeyey mowqifkiisa la xidhiidha in xafiiskiisa uu diyaar u yahay xalinta tabashooyinka ay qabaan mucaaradka iyo saamilayda siyaasadeed ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey dooda iyo isqabsi fara badan uu ku taagnaa. ra-iisul wasaare Roble waxa uu tilmaamay in mucaaradka mid uu la kulmi doono islamarkaantaas inuu kala hadlayo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka tabashooyinkan wadahadal ugu dhammeyn lahaa. afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalim oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay go-aansatay in dhammaan tabashooyinka jira wadahadal lagu dhammeeyo ayna dalka ka qabsoonto doorasho wada ogol ah loona wada siman yahay. doorashooyinka iyo sidoo kale tabashooyinka jira iyo sidii dalkan si daahfuran doorasho ay uga dhici lahayd taasoo runtii laga gaaray safgarad. sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu ku celiyey hadalkiisii ahaa oo horey ugu sheegay ahaa in had iyo jeer uu diyaar u yahay in uu la fariisto dhinac walba oo leh fikrad ka duwan ama aragti qaba ama maaragtay tabasho qaba. sidaa darteed ra-iisul wasaare wuxuu sheegay inuu had iyo jeer diyaar u yahay in uu cid walba la kulmayo siyaasiyiinta kale iyo cid kastoo danaynaysa arrimaha siyaasaddana uu kala hadlayo si dalkan ay uga dhacdo doorasho. hadalkan xukuumadda ayaa waxa uu daba socday kulamo uu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya la qaatay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kalana hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka ay u qabsoomi lahayd doorasho loo wada siman yahay. dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlgal go-doonka looga qaadayo deegaano ka tirsan gobolka bakool. warkaan waxaa faahfaahinaya cali xasan. xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa mar kale waxa ay ugu baaqday xubnaha ka barbar dagaalamaya al-shabaab inay iskaga soo baxaan iskuna soo dhiibaan dowladda soomaaliya. wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo ku sugan degmada waajid ayaa sheegay in al-shabaab ay culeys ku hayaan islamarkaana saameyn weyn ku leeyihiin deegaankaasi. waxa uu sheegay in al-shabaab ay cunaqabateyn saareen degmada waajid iyo deegaanada kale ee hoostaga, waxauna ugu baaqay inay culeyska ka qaadaan degmada islamarkaana ay isaga soo baxaan al-shabaab. wasiir jaamac waxauu si cad u sheegay in dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ay si wada jir ah go-doonka ay ka saareen al-shabaab ay ku hayaan degmada waajid. walayu hawadan ogaay magaaladan waqtigaasi hanuuan aljaaftiimay nalka kana damyaayan iyaalkii han raabta iyo dagaalkan mashalka saayan diintiyo sheegadaayana haarangu walma ku jaran eraay sileen sheegay geeka kolley bilan hata galbaga kahayo hanun wanaagan haayo sidii geekasay haatow ma iila jaro taawiya mayba rajeeyane amniga guud ahaan inti walbadan ku qabsaman deegaanada iska furuman dadka dameeradiio liinku gubno bajaajadiio liinku baabi'iina iyaalsho i bilaantiyo liinleyni rajeeyan yoona maylenaa walaalogingu dadkii kingu walgaare hata ku dheefasanlan walaalka intiada cuna qabatayd aan hungurin diidda wal micnaha kiin kordhiyaasa ma leh diingna meeliya kukuqoranta ma leh dadka walaalyogin an gargaara oo walaa isingata ka dhajartaha ku nagada jidite un furo umudo kaleeba jiditeedii un furunta walan wala iskala dhajara leh marka maysiinka la taliyaane inti mayla eraawis wala isinka dhajartaha ku nagatan dadka walaalogin mayla eraawis an gargaartano hooga dhallinyarada geeka meelin roogdo oo horumarka ku shaqeeyaska jarto siinka jarte ilaahay ha siinku hanuuniya ha ku bira malena. hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli degmada waajid iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka bakool ay u go-doonsan yihiin al-shabaab. warkaas waxooda kaga imaanaya idaacadda risaale ee magaalada muqdisho. warar dheeraada ayaa kasoo baxaya koox ka mid a taageerayaasha madaxweyne trump oo ka xoomay aqalka koongareeska waddanka mareykanka. haweeney ayaa lagu soo waramayaa in la joogtay kadib dhaawac ayaa kasoo gaaray iyadoo la sheegay in dhaawacaasi markii dambe ay u geeriyootay. taageerayaasha rabshadaha wata ee madaxweyne trump waa rabshadaha ka waday magaalada washington ee taageeraha u ah madaxweyne trump ayaa jebiyey xarunta loo yaqaano capital ee magaalada washington iyada oo xildhibaanada ay ku kulmayeen si ay u xaqiijiyaan in madaxweyne trump waa madaxweynaha la doortay joe biden uu ku guuleystay doorashada. muuqaalada qaar ayaa muujinayay banaanbaxayaasha oo isugu soo xoomay dhismaha iyadoo xubnaha koongareskana ay la carareen ciidanka booliska.
master baiden waxa uu sheegay in ficilkaasi uu ahaa in uu hadda dhammaado. master trump waxa uu sii daayay fariin muuqaal ah oo taageerayaashiisa kaga codsanayo in ay guryahooda aadaan.